بسم الله الرحمن الرحيم. sidee buu akhrisku ama wax akhrisku caado kuugu noqon karaa? ma jirtaa mararka qaybtood in intaad buug soo gadato buuggii aad ku ilowdo miiska ama maktabadda gurigaaga oo aadan akhrin? ma jirtaa in aad sheeko aad jeceshahay aad bilowday oo aad bartamaha uga tagtay oo dhammaystiri kari weyday? ma jirtaa mararka qaybtood marka aad istiraahdo buug akhri buuggii aad la soo baxdo aad fadhiisato aad bilowda hamaansi iyo inay hurda ku qabato? haddaad isku aragto waxyaabahaas oo dhan waxaad ogaanaysaa cudurkaas waa cudur dad badan ay qabaan, aniguna aan ka mid ahay. marka ha baqin, hays oran maaragtay quus ayaad ka joogtaa wax akhriska. haddaba halkan waxaan galabtay kusoo gudbinayaa haddii allah uu dalo idmo dhowr talo oo ku aadan sidii aanu wax akhriska uga yeeli lahayn caado joogto ah oo maalinla ah oo qofku wax akhrisku uga mid noqdo hawl maalmeedkiisa, hawl nololeedkiisa maalinlaha ah. midda koowaad waxa weeye wax kastoo aan bilaabayno, caado kastoo aan bilaabayno, shaqo kastoo aan bilaabayno, maxaan oran jirnay? kow waa in aad leedahay go'aan, waa inaad go'aansataa laga bilaabo maantay in aad joogtaysan doontid in aad akhriso oo aad wax akhriska ama dadka wax akhriya aad ka mid noqoto haddii allah uu wada leh uu idmo. midda labaad waxa weeye in aad taqaano waxa aad akhrinayso, waxa kaa maqanay aad rabto inaad faa'iidaysato. maxaad rabtaa inaad akhriso? maktabad weyn intaad iska gasho in aadan wixii kaa hor yimaada aadan iska akhrin ama aadan iska gadan ama buugaag noocaas aadan iska qaadane aad taqaano hadafka iyo meesha aad u socoto ee aad akhrinayso. ardayda dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe dhigta iyagu waxay leeyihiin muqarar ay ku khasban yihiin inay akhriyaan oo ay wax ka bartaan. kuwa jaamacadaha dhigta iyaguna waxay leeyihiin takhasusaad u gaara oo ay ku khasban yihiin iyaguna in ay focus ka saaraan oo ay wax maaragtay ka miro dhalaan. saa daraadeed qofku waa in uu yaqaanaa waxa uu rabo in uu akhriyo. iyaduna waxa weeye qodobka labaad ee muhiimka ah ee maaragtay markii aanu tallaabo hore ugu qaadayno in aanu wax akhrino lanaga rabo in aan maaragtay aan naqaano. qodobka saddexaad waxa weeye in wax akhriska aan ku darno jadwalkeena ballamaha ee maalinlaha ah ee qofku maaragtay maalintii ama bishii hal mar uu maaragtay qorshaysto oo uu geliyo inaan marka aan maalin kasta aan ku leenahay jadwalkeena maalinlaha ah 10 daqiiqo 15 daqiiqo xilli go'an in jadwalkaaga maalinlaha ah aad ku leedahay muhiim waaye. saa daraadeed waxaa fiican in aynu tartiib ku bilowno, inaynu ku bilaabin saacad wax akhrisa inaan lagu bilaabin, laakiin lagu bilaabo masalan subaxdii 10 daqiiqo oo wax akhrisa oo wax akhriso buug aad akhriso iyo 10 daqiiqo gelinka dambe gaar aan xilliga aad seexanayso in aad maaragtay aad akhriso. jadwalka marka ku dar in aad ku yeelato jadwalkaaga nolosha maalinlaha ah saacad ama xilli go'an oo aad wax akhriso. qodobka afraad waxa weeye in maanta xilliga adduunka la nool yahay mashquulka badan waad la socotaan, orodka badan subaxda qofku marka uu soo kaco ama shaqadiisa gaarka aado ama tan dowladda uu shaqeeyo aado ama tan private-ka uu aado ama ganacsigiisa uu soo kaco waxaa laga yaabaa inuu xilli u waayo uu wax akhriyo kabacdina gurigii iyo faamilkii caruurtii iyo orodka nolosha maaragtay yowmiga ah ay maaragtay saameyn ku yeeshaan qofkii inuu waqtiga u waayo inuu buug warqada ah akhriyo inuu xilligaa waayo. saa daraadeed waxaa jira qaabab kale ama wasaa'il kale oo kuu buuxinaya xilligaa maaragtay aad buugga akhrin lahayd. waxaa jira maantay smartphones badan baa jira oo dadku ay isticmaalaan. noocyadii hore waa laga tegay, ipad ba dadku isticmaalaan. aqoontii waxaa laga wada dhigay electronics. waxaa halkaas aad helaysaa ebooks waxyaabaha la dhaho oo maaragtay buug iyo pdf ah oo maaragtay maktabad dhan oo waxaa weeye ebooks ah baad waxaad doonta ka akhrisan kartaa. sidoo kale haddii akhrisku xataa dhibaato kugu yahay maanta wixii waa la sii jilciyay waxaa laga dhigay audio books. waa maxay inaad dhegaysato
inaad dhegaysato. waxaad dhegaysan kartaa masalan xilliyada aan shaqada u soconno. waxaa dhici karta gurigeyga iyo shaqada inay isu jiraan 20-30 daqiiqo 40 daqiiqo, dadka qaybtood inay saacad shaqada ay maaragtay usii socdaan. xilligaas xilli muhiim ah. haddaad bas saaran tahay waxbaad akhrisan kartaa ama waad dhegaysan kartaa, buug baad akhrisan kartaa ama aad dhegaysan kartaa. waxaad kaloo aad dhegaysan kartaa ama waxaad akhrisan kartaa xilliga aad jimicsiga samaynayso, aad jiimka ku jirto, ma fahantay, aad maaragtay bahalka lagu socdo, mashiinka lagu socdo aad saaran tahay, dhagahaagaad gashanaysaa, waad dhegaysanaysaa, buuggii baa lagu akhrinayaa, ma fahantay. intii aad jirka jimicsiga u samaynaysid, maskaxdana dhinac kalaa laga dhisayaa, ma fahantay. waxaad kaloo aad samayn kartaa xilliga aad lugeynaysid, bannaanka aad soconaysid, waxaad samayn kartaa maaragtay inaad dhegaysatid. waxaad samayn kartaa xilliga aad ballamaha la leedahay, maranta ballan dhakhtaraad leedahay oo aad joogtid qolka lagu sugo dhakhtarka, iyadana waxbaad maaragtay aad dhegaysan kartaa. xilliyadaasoo dhan waxay mutax kugu yihiin in aad ka faa'iidaysato oo aad wax dhegaysato ama aad buug maaragtay daalacato. qodobka maxaa la yidhaahdaa shanaad maaragtay kaa ku xiga waxa weeye in aad yarayso intaad yarayn karto xilliga ama waqtiga macno la'aanta aad ku lumiso ee aanu maaragtay inta badan isticmaalno baraha bulshada, social media. waqti badan baa nooga baxa wallaahi. qofku haddii uu maaragtay dib u raaco jadwalka maaragtay inta uu maaragtay fiirinayo mobileka, waxa dhici karta 3-4 saacadood in maalintii ay noqoto. dad bay 5 iyo 6 saacadood ay ka qaadataa maaragtay inay maalintii ku jiraan social media ay ku jiraan. waqtigaas waqti baa looga beeqaamin karaa wax akhriska, ma fahanteen. waqtigaas waqti baa looga soo jari karaa maaragtay wax lagu akhriyo. qodobka 6aad waa in marka aanu wax akhrinayno aanu ka bilowno wax aan xiisaynayno, shay xiisa iloo leh oo inaan ka bilownaa. yani bilowgu waxa inuu noqonayaa maaragtay shay aad xiisaynayso, ama haddaan si kale u dhigo mawduuc daaweynaya ama cilaajinaya problem qofka haysta ama mashaakil maaragtay qofka haysta. qodobka 7aad waxa weeye in aad buugga ama waxa aad akhrinayso uu la jaan qaado ama la mustawayahay garaadkaaga xilligaas. hebel oo aqoon-yahana ayaa buug hebel aan ku arkay oo akhrisanaya, inaadan is oran adiguna soo qaado buugga noocaas oo kale akhriso. maya, buug adiga markaas garaadkaaga iyo aqoontaada iyo suhuulada maaragtay waxaad samayn kardho ku jaango-an baa aada u fiican in aad maaragtay ku bilowdo wax akhriska. sidoo kale qodobka muhiimka ah waxa weeye in maxaa la yidhaahdaa pageska ama bogaga buuggu aysan badnayn. haddaan ka bilaabo buug masalan 100 pages ah, waxaa laga yaabaa inaan ku daalo. laakiin haddaan ku bilaabo buug 20 page ah oo laga yaabo 2 beri inaan ku dhammeeyo, kabacdina aan helo dhiirigelin naftayda in aan samayn karo, inaan wax akhrin karo, buug dhammayn karo, aan uga gudbi karo buugaagti kale. sidaasaa ka fiican intaan ku bilaabi lahaa buug aada u weyn oo maaragtay 300 iyo 250 pages ah. marka buugaagtu siday u kala yar yihiin, u kala fudud yihiin ayaa laga rabaa in aad maaragtay aad ku bilowdo. qodobka ugu dambeeya midka ka horeeya waxa weeye in wax akhriska aad la mataanayso caado kale oo joogta ah adiga ku ah oo aad jeceshahay, naftaadu ay jeceshahay. dadka qayb baa waxay jecel yihiin markay xilliga shaqada ka soo baxaan inay fariistaan meelaha kafeega, Starbucks iyo meelaha la midka ay fariistaan oo kafee ku cabaan. kafeegaas marka wax weyn buu yahay noloshooda, wax weyn buu yahay. marka meeshaas aad fadhido koobka kafeega aad cabayso laga yaabo inay rubi saac ama 20 daqiiqo ay tahay. waxaa laga yaabaa xilligaas inaad uga faa'iidaysato in aad wax akhriso. marka maxaan halkaa mataanaynay oo isku darnay waxa weeye wax akhriskii iyo caadadii joogtada ay ahayd ee maalinlaha ahaa ee aan samayn jiray. qodobka ugu dambeeya waxa weeye inaan ilaahay la kaashano. wax kasta oon samaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan la kaashanaynaa. isagaa maaragtay nagu dhiirigelinaya, isagaa awood noo siinaya inaan sheegi samayno. waxa ugu weyn oo qofka laga rabana waxa weeye oo wax la akhriyo ugu wanaagsan kitaabka Alle. kitaabka Alle saaxiib aan la noqono,
wardi joogta ah isagu kuma jiro waxyaabaha kale aan ka sheekeynayno isagu waa inuu joogto inoo noqdaa haddaan xisib akhrinayno haddaan jus akhrinayno waa in iyagana aan joogtaysanaa laanna akhriska maalintii qur-aanka aan ku bilownaa subaxdii waxaa weeye maalinta oo dhanba ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogu barakaynayaa marka iyadana yaan maaragtay la ilaawin intaasaan maanta ku keenaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh